يا سيدي بحبكم أرجو المنى فعظيم قدرك عندنا فعظيم قدرك عندنا مهما علاها لا يوصفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka bilaabaynaa maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bisha Dilxija 1441 hijriyada oo waafaqsan 17 bisha 8 2020 miilaadiga silsilad ku saabsan shamaa'ish nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oo qaadan doona xalaqaad istaba socda insha Allah taala kolba intii Ilaahay noo fududeeyo. Arintaas oo ujeedada aan ka leenahay ay tahay in ummaddu ay barato nabigeeda sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iyo sifaadkiisii iyo ahwaashiisii inay wax ka bartaan. waxaan ka hadli doonaa xalaqadan u horeysa shamaa'ilka iyo fawaa'ida ay leeyihiin barashadooda nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo sifaadkiisa la barto iyo faa'iidooyinka ay leedahay ayaan xalaqadan u horeysay koobaad kaga hadli doonaa insha Allah taala. Ilaahay tabaaraka wa taala nabi maxamed inuu soo diray oo kitaabka quraanka u soo dhiibay waxay ahayd nicmo aad u weyn oo nicmo ka weyni aysan jirin. kownka iyo saqalaynka aadamaha iyo jinka labadaba nicmo Ilaahay siiyay ta ugu qaalisan ee ugu weyn bay ahayd in nabi maxamed loo soo diray sallallahu alayhi wasallam. وكي الله كشيء تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم إلى آخر الآيات. نعمة وإله بحي تبارك وتعالى. سيداس دراديد أيا أمدا قارهان علماء يضو وحي ددال سيادة كبحيان نبي محمد صلى الله عليه وسلم يأحواشي سي نرشي النبي صلى الله عليه وسلم لقصوا بالله xilligii saxaabadii iyo ardadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa maanta ummaddu jacaylkay nabigeeda u hayso sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa ka dhashay inay dadaal ku bixiyaan noloshii nabiga sallallahu alayhi wasallam inay bartaan sifaadkiisii akhlaaqdiisii inay bartaan. waxay culimadu qoreen siiradii nabiga sallallahu alayhi wasallam dhalashadiisii laga bilaabo ilaa geeridiisii laga soo gaaro bal iska dhaafay intuusan nabigu sallallahu alayhi wasallam dhalanin ka hor waxyaalo badan oo hordhaca ama irhaasaad ah oo nabiga sallallahu alayhi wasallam imaanshihiisa iyo soo dhawidiisa ku tusayay ayay qoreen culimadu taariikhda gaar ahaan ilaa laxdadii nabigu dhimanayay sallallahu alayhi wasallam. waxay qoreen cilmi al-ghazawaat cilmiga ku saabsan duulaamadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo xaaladihiisii hadduu dagaal ku jiro iyo hadduu nabad yahay intaba way qoreen. waxa kale qoreen oo kutub ka alifeen waxa la yiraahdo aayaatu risaala iyo dalaa'il an-nubuwah, yani nabiga nabinimadiisa iyo risaaladiisa aayaadka ku tusaya iyo waxa la yiraahdo nabinimada adiladeeda dalaa'il an-nubuwah iyadana kutub gooniye ka alifeen oo waxa mucjizaadka loo yaqaano. waxay kale wax ka alifeen oo mawduucan hadda aan doonayno inaan wax ka nidhaahno waxa loo yaqaan ash-shamaa'il, yani sifaadkii nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamihiisa haday tahay abuurka sidoo uu abuurnaa ama haday tahay akhlaaqdiisa nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam. marka mawduucan shamaa'ilka oo aan doonayno hadda inaynu ka hadalno jamcu shimaal baa la yiraahdaa. shimaalkana waxa la yiraahdaa waa at-tabaa'ic wal akhlaaq, yani waxa weeye dabeecadda iyo akhlaaqda ayaa waxa la yiraahdaa ash-shamaa'il la yiraahdaa. laakiin culimada xadiidka oo inta badan nabiga noloshiisa sallallahu alayhi wasallam ku takhasusay
hadday tahay hadalladiisii, hadday tahay afcaashiisii waxyaaluhu sameeyey, hadday tahay waxyaalihii agtiisa lagu sameeyey nebigu u taqriiriyey sal alla alay wasalam. culimmada sida goonida ah mudnaanta u siiyo culimmada xadiidka la yidhaahdo, shamaa'ilka laba qaybood bay kaga hadlaan. waa midda koowaadee horta nebiga sal alla alay wasalam akhlaaqdiisii iyo dabeecaddiisii sharafta lahayd ee qiimaha badnayd bay kaga hadlaan. waxaa la yidhahdaa ashamaa'ilu alkhuluqiya loo yaqaano. waxaa kaloo kaga hadlaan awsaaftii nebiga suuradiisa daahirka ah, yacni qaab abuurkii ilaahay u abuuray iyo jidhkiisa siduu u yaalay iyo iyadana kaga hadlaan oo qayb kale ah. waana midda loo yaqaano ashamaa'il alkhalqiya, yani wax weeye sifaadka iyo akhlaaqda abuurkiisa nebiga sal alla alay wasalam siduu u abuurnaa iyo jidhkiisu qaabka u yaalay. inahaas insha allahu tacaala sidaasaa loo qeexaa. culimmada saan horeyba usoo sheegnay nebiga sal alla alay wasalam shamaa'ilkiisii kutub gooniyay ka alifeen, sida alimaamu tirmidi oo kaleeto kitaabkiisa ashamaa'il almuxamadiya waa kitaabka asalka u ah. culimmada kale xadiidka ee kutubaha qoray laftooda yayna magacaaba u bixinin, laakiin nebiga akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii iyo qaabdhaqankiisii iyo weliba jidhkiisu siduu u abuurnaa iyo suuradiisay ahayd ayaguna kutubtooday ku keenaan, bukhaari ilaa muslim ilaa aimada kale xadiidka intuba. kutubta maalan loo yaqaano kitaabu albiri wasila oo kale iyo kitaabu aladab oo kale ayay aada ugu keenaan. kutubta nebiga sal alla alay wasalam ka hadlaysa ama qaabka u abuurnaa ee jidhkiisa u yaalay ama akhlaaqdiisii ka hadlaysaay in badan baa culimmadu sidoo kaleeto ay sharxeen oo kutub fara badan oo aada u badan oo yacni shuruux sharaxday oo macaanida sii caddaysay oo fahamka u soo dhoweysay, dadaal badanna dhanka culimmadu way ku bixiyeen. su-aasha isweydiintale waxay tahay barashada nebiga sal alla alay wasalam shamaa'ilkiisa ama nebiga sal alla alay wasalam akhlaaqdiisii iyo dabeecaddiisii barashadeedu maxaa faa'iido oo ku jirta? jawaabtu waxa weeye ma aha waxyaalaha aan ka hadlayno nebiga sal alla alay wasalam dabaa'icdiisii iyo akhlaaqdiisii ah wax iska taariikhahoo la isaga faakihaysta ma aha. keliyata wax sheekooyin uun dadku ay wakhtiga isku dhaafiyaanna ma aha, balse waa cilmi aad iyo aad muhima oo xambaarsan fawaa'id aada u waaweyn oo dadka taabanaya, noloshooda taabanaya. faa'iidooyinka ku jira iyo ahmiyadda ay leedahay shamaa'ilka nebigoo la barto sal alla alay wasalam haddaynu wax ka tilmaanno waxaa ka mida imtilaa'u alqalbi bitacdiimihi wa tawqiirihi sal alla alay wasalam. yacni markii nebiga sal alla alay wasalam jidhkiisuu u quruxsanaa, siduu u yaalay, qaab dhaqankiisii uu dadka ula dhaqmi jiray, hadday tahay ama cadowgiisa ama asxaabtiisa iyo ummaddiisa, markaad barato oo ruuxu uu barto yacni qalbigiisa waxaa gelaya tacdiimin iyo weynayn fara badan baa waxay u gelaysaa nebiga sal alla alay wasalam. sababtu waxa weeyaan lianna annufuusa majbuulatun bitacdiimi alkamaali addaati waalkamaali alakhlaaqi. yani waxa weeye bini aadamku waxaa dabeecad u ah muxuu ahay in dhammaystirnaanta ama jidhkiiyo daatada ruuxoo dhammaystiran ama akhlaaqdiisa dhammaystiran, dabcan waa inta basharku bini aadamuhu gaadhi karee, inay jeclaadaan, inay weyneeyaan. yani waxa weeye haddii wax wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan iyo lagaaga warramo, yani way kula weynaanaysaa, ruuxa ku sifaysanna waa kula weynaanaya. waxaa mithaal u noqon karaya oon tusaale u soo qaadan karnaa, tusaalayaashu waa badan yihiine. wakhtigii nebigeenna sal alla alay wasalam waxaa dhacday nebigoo geed hoostiisa jiifa ayaa nin gaalaho cadow ah ayaa geedka u yimid nebiga sal alla alay wasalam. kadib seeftii nebigoo geedka sudhnayd ayuu la baxay. markaasuu nebiga sal alla alay wasalam nebigu wuxuu ku baraarugay isaga oo ninkani seeftii oo galka ka siiban haysta, nebigana la dul taagan yahay sal alla alay wasalam oo uu leeyahay man yamnacuka minii, yaa iga kaa celinaya? markaasuu nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam allah, ilaahay baa iga kaa celinaya. seeftii baa ka dhacday, nebigu seeftii buu qaatay sal alla alay wasalam. markaasuu wuxuu ku yidhi man yamnacuka minii, adiga yaa iga kaa celinaya maanta? markaasaa wuxuu yidhi kun khayra aakhidin, maxamedow nin seef qaada ka ugu wanaagsan noqo, iska kay cafi. nebigu sal alla alay wasalam waa saamaxay, fakhallaa sabiilah, waa iska sii daayay nebigu sal alla alay wasalam, kac iska tag buu yidhi. markuu ninkii tegey oo la sii daayey
saxaabadii nebigu oo markii dambe intay dhacdadii arkeen soo yaacayoo ninkii inay dilaan dabcayoo nebigu ka daayo ka fasaxayoo iska daaya markii ninkii tegey oo dadkiisii u tegey tolkii iyo dadku ka yimid markuu u tegey wuxuu ku yidhi ji'tukum min cindi khayri innaas waxaan idinka imid dadka ninkii ugu akhyaarsanaa ee ugu wanaagsanaa agtiisaan ka imid nebigu ka wadaa sal lla alay slam waa gaal ninkaasi waa gaal laakiin waxaa saameeyey qaab dhaqankii nebigu ula dhaqmay sal alla alay wasalam wuxuu sidaa ugu weyneeyey nebiga sal alla alay wasalam oo intuu dad aadamihii oo dhan inuu ka khayr badan yahay uu ku tilmaamay isagoo gaal ah wax kale ma aha waa mucaamalada nebigu uu la mucaamalooday sal alla alay wasalam waa akhlaaqda iyo dhaqanka uu ka arkay ayuu wuxuu yidhi dadka ilaahay kii ugu khayr badnaa waaye waxaa gaadhsiiyey isagoon rumaysanayn oo gaala inuu sidaas yidhaahdo oo sidaa u weyneeyo waa akhlaaqdii nebiga sal alla alay wasalam marka akhlaaqda nebiga barashadeedu waxay keenaysaa in qalbigeenna uu ku weynaado nebigu sal alla alay wasalam waxaa ka mid ah in nebiga sal alla alay wasalam akhlaaqdiisii iyo shamaaishiisii la bartaayey waxay keenaysaa rumayn in la rumaysto oo kii aan rumaysnayn uu rumeeyo kii rumaysnaana inuu yaqiin sii siyaadsado oo iimaan ka sii kororsado sababtu waxa weeye cadamadii nebigeenna sal alla alay wasalam iyo shamaaishiisii akhlaaqdiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxay keenaysaa yacni cidda sifaadka noocaasoo kale leh boqor nin madax caadiya ma noqon karo bini aadan caadiya ma noqon karayo qasab waxbaa u dheer yacni bini aadan caadiya inuu sidaa u dhaqmo oo akhlaaqda noocaas iyo dhaqanka noocaas iyo dabeecadda noocana uu yeeshahay waa wax naadira waaye waa waxaan suurtagal ahayn sidaas daraaddeed bini aadannimada waxbaa u dheer risaala u dheer yacni waa la soo dirsaday warkuu sheegayo waa run wuxuu la yimid waa xaq taasaa ka dhalanaysa waxaa tilmaamaysaa arrintaanoo mitaal u soo qaadan karnaa saxiixu muslimka xadiidka ku yimid xadiida anas nin acraabiya ayaa nebiga weydiiyey sal alla alay wasalam waxisii buu ku yidhi waa nin reebaadiye ah xoole isii maxamedow markaasuu nebigu sal alla alay wasalam wuxuu siiyey adhi aad u fara badan oo tiro aan lahayn waa nin reebaadiye waxoogaa yarbaaba ku filaaba hadduu iska siin lahaa laakiin nebigu adhi aad u fara badanoo yani dhul ilaahay buuxin karaya buu nebigu siiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii acraabigaha markuu adhigii qaatay ayaa wuxuu u yimid dadkiisiibuu u yimid waa ka soo tegey nebigu sal alla alay wasalam qabiilkuu ka dhashay reerkiisiibuu u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi yaa qowm aslimuu wardadyow tolkayow islaama fa ina muxamadan yucطi caطaa'a man laa yakhaafu alfaqra war ninkan muxamedeen ka imid agtiisa ninkan nin caadiya ma aha sida uu wax u bixinayo iyo siduu deeqsiga u yahay iyo siduu wax u qaybinayo ninaan faqri iyo baahiba ka baqayninba sidiisoo kale wax u bixinaya war ninkaa diintiisa soo galo ina keena aan islaamne ayuu leeyahy waa nin axraabi ah oo tolkiisa ugu yeedhaya inay diinta soo galaan calashaani hal dhacdo ayuu nebiga kala kulmay sal alla alay wasalam dhacdadaasoo ah deeqsinimada nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka waxa weye akhlaaqda wanaagsani waxay keenaysaa inay dadka diinta u soo jiido inay rumeeyaan in badanoo iyaga ka mid a sidoo kale fii saxiixi albukhaari qisadii hiriqla markuu shaam abu sufyaan qisadu way dheereyd bukhaariga ku timid hiriqle ayaa nebigu waraaq u diray sala allahu calayh waalihi wasalam ilaan boqorrada iyo madaxda adduunka nebigu sal alla alay wasalam wuxuu u diri jiray dhambaallo waraaquu u diri jiray nebigu sal alla alay wasalam raggii waraaqaha u diray waxaa ka mid ah hiriqla ka mid ahaa boqorkii ruum dowladihii markaa adduunka ugu xoog badnaa mid ka mid ah ayuu boqor ka ahaa boqortooyadii ama imberatoriyadii ruum ayuu ka ahaa boqor ka ahaa waraaqdii nebigu markay gaadhay sala allahu calayh waalihi wasalam wuxuu yidhi bal ninkaas wax xigtadiisoo carab ah oo dhulkeenna joogta soo raadiya waxaa la soo helay abu sufyaan oo markaa gaal ahaa iyo ganacsato la socoto u timid shaam u timid inay ka ganacsadaan oo alaab ka qaataan badeeca ka qaataan waa la soo kaxeeyey hiriqlaa loo keenay boqorkii baa loo keenay wuxuu ku yidhi ninkaas nebinimada sheegtay ee halkaa ka soo baxay agtiinna ninka nasab ahaan idinku dhowayaa waaye abu sufyaan baa wuxuu yidhi anigaa ugu dhow nasab ahaan dhalash ahaan anigaan isugu dhowna markaasuu yidhi su-aalaan weydiinayaa qoladii intii kale la socotay buu ku leeyay ninkan su-aalaan weydiinayaaye hadduu been ii sheego waa beentii dhah ku beeniya
hiriqle marka wuxuu bilaabay inuu abu sufyaan weydiiyo su'aalo ku saabsan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. su'aalaha waxaa ka mid ahaa uu weydiinaya abu sufyaan, hiriqla weydiinaya wuxuu ku yidhi fahal kuntum tattahimuunahu bilkadib qabla an yaquula maa qaal, been miyaad ku tuhmi jirteen oo uga shakisnaydeen inuu been sheego intuusan nebinimada sheeganin? been ma ku taqaaneen mase ku tuhumsanaydeen? abu sufyaan wuxuu yidhi maya. su-aal labaad buu kulu weydi wuxuu ku yidhi fahal yaqdir, hadduu ballan idinla galo ballamaha ma ka baxaa? abu sufyaan wuxuu yidhi maya, laakiin hadda annagii isaga waxaa naga dhexeeya heshiis, hadda wuxuu sameeyey ma naqaano, intaasuu dhex geliyey, laakiin ballanta kama baxo, kuma naqaano in ballanta ka baxo. wuxuu ku yidhi fahal qaataltumuuhu ma la dagaalanteen? isagiiyo idinka dagaal ma idin dhex maray? wuxuu yidhi haa, dagaal waana dhex maray. see buu ahaa buu yidhi dagaalkiinu? abu sufyaan wuxuu yidhi marna wuu naga adkaaday, marna waan ka adkaanaa. xarbu sijaal, marna waa naga reeya, marna waa ka reynaa. markaasu wuxuu ku yidhi muxuu idin amraa? mabda' uu la yimid ee idiin sheega muxuu yahay? markaasaa wuxuu yidhi wuxuuna leeyahay ilaahay keligii caabuda, cibaadadiisana cid kale hala wadaajinina. wixii aabbayaashiin ay leeyihiin ad ka soo gaadheen ee dhaqamaa isaga taga. wuxuuna amrayaa salaada, wuxuuna amrayaa zakada, wuxuuna amrayaa runta, wuxuuna amrayaa dhowrsoonaanta iyo cafaafka, wuxuuna amrayaa qaraabada in la xidhiidhiyo. waxaasuu ka sheegay. labadan inay iswarsanayaan, labadu waa gaalo. hiriqlena waa boqorkii ruum, abu sufyaanna waxa weeye waa odaygii reer maka oo markaasi waa gaal, oo nebiga sal alla alay wasalam iyo iyaga markaa muddadaasi waa muddadii heshiiskii xudaybiya uu jiray waay. hiriqle markuu jawaabihii dhegaystay uu abu sufyaan ka bixiyey nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam, ayaa wuxuu yidhi hiriqle marka fain kaana maa taquulu xaqan, hadalkaa aad ii sheegtay abu sufyaanow hadduu xaq yahay, hadduu sax yahay oo saa aad u sheegtay u jiro, fasayamliku mawdica qadamaya haatayn, meesha labada lugood aan ku hayay halkan wuu qabsan doonaa buu yidhi. waqad kuntu aclamu annahu khaarij, waan ogaa inuu soo bixi doono, waan ka warhay laanna kutubtoodii horaa qorayey, kutubtii towreed iyo injiiliya inuu soo bixi doono way ku qorayd. waan ogaa inuu soo bixi doono, walam akun adunnu annahu minkum, laakiin ilama ahayn inuu idinka carabtaa idinka mid noqon doono. ambiyaa bani israa'iil meelahan laga soo saari doonaan moodayey, laakiin inuu carab ka soo dhex bixi doono ilama ahayn. markaasaa wuxuu ihi falow annii aclamu annii akhlusu ilayhi latajashamtu liqaa'ahu, haddaan isleeyahay nabad baad iyo badqab baad ugu tegi kartaa, waan isku kallifi lahaa inaan u tago, inaan la kulmo. haddaan u tagoon la kulmana wuxuu yidhi lugahaan u dhaqi lahaa. intaa markuu yidhi hiriqle ayaa dadkii meesha fadhiyey ee diintiisa raacsanaa iyo la taliyayaashiisii iyo golihii saroo marka meesha fadhiyey baa marka hal mar qayliyey, waa la kacay. kadibna iimaankii uu ku soo dhowaaday dib buu uga noqday. wuxuu yidhi idinkaan idin tijaabinahay, bal diintiinaan tijaabinahaye, daacad igama ahayn warkaan sheegahay. kursigiisii buu uga xishay, laakiin wuu gartay inuu nebi maxamed nebi yahay, waana qiray inuu nebi maxamed rasuul ilaahi soo diray yahay. muusan arkin, lamana kulmin, laakiin inuu qiro oo uu yacni waxa weye ictiraafo. laakiin kursigiisa markii dambe haba uga xishee, maxaa keenay? akhlaaqda looga sheegay, dhaqanka wanaagsanee looga sheegay, dabaa'icdan wanaagsanee looga sheegay. intaasi waxay ka suuroobi karto waa nebi, intaasi waxay ka suurtogelato waa rasuul. marka waxa weeye nebiga shamaa'ilkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa oo la barto waxay keenaysaa inay dad badani sidaa ku rumeeyaan. in badanina saa waaba ku rumeeya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxaa ka mid a faa'iidooyinka ku jira in shamaa'ilka nebiga la barto sal alla alay wasalam. waxaa ka mid a macrifatu shamaa'ilihi tastadcii maxabbatahu, akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii barasho la bartaay waxay keenaysaa in la jeclaado. lanna quluubta bini aadamku sifaadka wanaagsan iyo dadkeeda inay jeclaato ayaa ilaahay ku abuuray. saas daraaddeed waxaa la yidhaahdaa aludunu tacshaqu qabla alcayni axyaana, dhegtu way caashaqdaa isha ka hor marmarka qaarkood waxaa dhacda
in dhegta macluumaad ku soo dhacay oo dhegtu heshay in ay keento cishqi iyo jacayl iyo kalgacayl inay keento ayadoo weli ishu aynan arag وفعلا saas waay annaga inaan nebi maxamed jeclaano sal alla alay wasalam ummaddiisa inteeda badan maysan arkin nebiga sal alla alay wasalam saxaabadiisii iyo ardadiisii oo marka ummadda inteeda kale loo fiiriyo tiradoodu yaraanayso ayaa arkay nebiga sal alla alay wasalam laakiin inteenna kale maxaan ku rumaynay maxaan ku jeclaanay waxaan ku jeclaanay waxaa ka mida waxa nalooga sheegay ee dhegtannadu maqashay sharcigu la yimid akhlaaqdiisii wanaaggiisii inuu sabab u ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi in ilaahay naga badbaadiyo dulumaadka iyo mugdiyada gaalnimada iyo jahliga iyo in ilaahay sababtiisa nagu badbaadiyo marka macluumaadka wanaagsan iyo sifaadka wanaagsan ee nebiga laga sheegayo sal alla alay wasalam waxay keenayaan in la jeclaado rasuulka sal alla alay wasalam iyo jacaylkiisay keenaysaa waa jacaylkaasina wuxuu asaas u yahay oo uu gundhig u yahay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi in hadigiisa la raaco in lagu daydo in muxuu ahay sunnadiisa la raaco in dariiqiisii la maro ayay iyaduna sabab u noqonaysaa waana faa'iidada kaleete ku jirta wey lanna wax weeyaan almaxabatu tastalzimu alta'asi waatibaaca hadyi wa sunnatihi yani jacaylka la jeclaadaayey wuxuu keenayaa in dariiqiisii aad marto qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah waa ka ilahay qur-aan ku yidhi haddaad ilaahay jeceshihiin aniga nebi maxameda isoo raaca ilahay baa idin jeclaanayee xasanulbasri wuxuu leeyahay qowm baa waxay sheegteen in ay alla jecel yihiin markaasuu ilaahay imtixaanay jacaylkooda inuu sheegasho yahay been ah iyo inuu dhab yahay yaa laga salgaadhay markaasaa waxaa lagu imtixaanay jacaylkaad sheeganaysaan hadduu dhab yahay markhaati u yeela caddaynkeena caddayntu maxay tahay alitibaac waa inaad dariiqiisa raacdo waa inaad sunnadiisii hadigiisii raacdo marka taasay keenaysaa kalgacaylka nebiga sal lay slam iyo jacaylkiisa iyo yani wax weeye quluubta oo uu yani wax weye weynaysa ama jeclaatahay waxaa ka dhalanaysa in aad raacdo ood sunnadiisii iyo dariiqiisii marto haddii aadan marin oodan raacin jacaylka aad sheeganaysaay waxba kama jiraan waaye wax jacayl yani wax weye iska marqaan waa iska jidba aansan lahayn waaye sidaas daraaddeed fawaa'iday ka mid tahay faa'iidooyinka shamaa'isha nebiga in la barto salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo cadamadiisii akhlaaqdiisii dabaa'icdiisii dhaqankiisii waxay keenaysaa sidoo kale in qalbigeenna nebigu sal lla lay wasalam jacaylkiisu ku weynaado sidoo kaleetana inaan hadigiisii iyo dariiqiisii aynu marno aynu raacno salawaatu rabbi wasalaamu calayh faa'iidooyinka laga faa'iidaysanayo waxaa ka mid a haddaad nebi maxamed taqaano sal alla alay wasalam ood akhlaaqdiisii taqaano ood dabeecadiisii taqaano ood qaabdhaqankiisii taqaano waxaa markaaba meesha ka baxayoon ku gelaynin oo markaaba kaa soo boodaya ood ka xajiimoonaysaa ololaha been abuuradka ah ee nebiga lagu samaynayo sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo ama ku saabsan cirdigiisii ama ku saabsan sharaftiisa ama ku saabsan nebiga sal ly slam akhlaaqdiisii iyo qaabdhaqankiisii ama qaab nololeedkii uu dadkiisa iyo saxaabadiisa ula noolaa ama qaabkii ula mucaamaloon jiray xataa dadka ka soo horjeediya gaalada uu ula mucaamaloon jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa yani waxa weeyaan mustashriqiinta iyo gaalada iyo munaafiqiinta iyo kuwo islaamnimo sheegto oo laakiin muxuu ahay aan qiimo ku fadhiyin oo ay gaaladaasi maskaxda ka wasakhaysay ayaa waayahan waxay shaqo ka dhigteen inay nebiga sal alla lay wasalam ku been abuurtaan waxaan jirin inay ka sheegaan inay ku jeesjeesaan inay magiciisa sharafta leh salawaatu rabbi wasalaamu calayh ay saarsaaraan wax been abuurda oo ay ku magac dilayaan haddii marka aad garanayso nebi maxamed muxuu ahaa sal alla lay wasalam sax muslimiinta intooda badan nebiga sal alla lay wasalam yani in bini aadam kamaal uu gaadho dhammaystirnaan bini aadam gaadho ama makhluuq gaadho khaaliq ma noqon karo allana ma noqon karo laakiin makhluuq ilaahay abuurtay kamaal uu gaadho meeshii ugu sarraysay inuu nebi maxamed gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi muslimiinta guud ahaan qalbigooda waa ku jirtaa weynayn waa ugu jirtaa jacayl waa ugu jiraa guud ahaan laakiin markaad barato tafaasiisha akhlaaqdiisu seebay ahayd yani deeqsinimadiisu seebay ahayd naxariistiisu seebay ahayd jidhkiisu see u quruxsanaa
marka tafaasiil ka ogaato shaki ma laha markaaba wararkan beenbeenta ah iyo munaafiqiintan iyo gaaladan isu kaashaday inay nebiga ku been abuurtaan ama caayaan ama aflagaadeeyaan ama wax ka sheegaan ayaa muxuu ahay markaaba waxaad helaysaa sidii aad uga jawaabi lahayd markaaba ku kadsoomi maysid waxa wax aad looga xumaadaa qaar muslimiintii ka mida ayaa dacayadaha dadka raqiiska dacayadaha raqiiska ay sheegayaan ee nebiga ka sheegeen sallallahu alayhi wasallam dad baa ku kadsooma oo marar badan moodaya inay muxuu ahaayay wixii wax ka jiraan marka waxay ka mid tahay muxuu ahaayay shamaa'ishiisa haddaad garanayso waxyaalaha aadan ku kalsoomaynin bay ka mid tahay waxaa ka mid a fawaa'idda laga helayo alwuquuf calaa miisaani maxaasin alakhlaaq waayahan bini aadankii baabaa wuxuu isku khilaafsan yahay oo muran badani ka joogaayay akhlaaq wanaagsan maxaa la yidhaahdaa qurux maxaa la dhahaa wanaag muxuu yahay qolo walba miisaankooda khaaska ah bay wataan muxuu ahaay waad og tihiinoo adduunka hadda waxaad arkaysaa waxaa lagu leeyahay dadka adduunka ugu qurux badan baa la tartansiinayaa tartanka quruxda akhlaaqdii iyo wanaaggii iyo wixii wanaag ahaa baa lagu muransan yahay annaga marka waxaan leenahay wanaag akhlaaq wanaagsan dabeecad wanaagsan dhaqan wanaagsan miisaankeedu waa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo hadyiguu la yimid wixii nebi maxamed uu la yimid sal alla alayh wasalam ama isaga dhaqankiisa ahaa ama shareecaduu la yimid ayaa miisaan u akhlaaqda wanaagsan iyo quruxda iyo wanaagga iyo dhaqanka san wixii khilaafaayey xataa aadamaha intiisa kale hadduu isku raaca waxba kama jiro waa masalo waayahan dambe uu yani waxa weye qabashkeedu badan yahay dad fara badan oo muslimiinta ka midana aad aragtaba inay ku kadsoon yihiin waxay fawaa'idda ku jirta ka mida waa qayb ka mida yani waxa weeye axaadiista nebiga sal alla alay wasalam barashadeedii qayb ka mida weeye iyadana waxa weye masdar masaadir tashriic waxa weye masdarka labaada waxaa ka mida nebigeenna sal alla alay wasalam inaan u abaalgud intaasi waa inta ugu yar inaan maxaasintiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsaneed faafinno waa inta ugu yaree nebigeenna sal alla alay wasalam wanaaggu inoo galay iyo abaalku inoo galay inta ugu yar ee aynu samayn karno ee aan isleenahay qayb yar bay ka noqon kartaa waxa uu inaga mudan yahay nebigu sal alla alay wasalam intaasi waxa weye waa akhlaaqda iyo dabeecadda nebiga sal alla alay wasalam markaynu ka hadlayno faa'iidooyinka ku jira qaar ka mida waxaa su-aal isweydiin le jidhkiisa siduu ahaa oo qayb shamaa'isha ka mida ah ayada faa'iidada ku jirta maxay tahay faa'iidooyin baa ku jira in la barto waxaa ka mid a faa'iidooyinka ku jira waxa weeyaan waxaa jira nebigeenu sal alla alay wasalam xadiid uu saxiixaynka ku yaallo uu leeyahay nebigu sal alla alay wasalam ciddii igu riyoota xaq buu ku riyooday shaydaanna isuma soo ekaysiiyo dad badan baa marka nebiga ku riyoonaya sal alla alay wasalam laakiin nebiga aad ku riyoonaysaay nebi maxamed wuxuu noqonayaa riyada aad riyootay waxay sax ku noqoni inaad ku aragto sifaadkii uu lahaa waxaana macnaha ku tusaya alimaam moxamed ibnu siriin waa a'immadii taabiciinta ardadii saxaabadu ka mid ahaa nin caalima buu ahaa nin baa wuxuu uga qisooday oo u sheegay inuu nebiga arkay sal alla alay wasalam nebi maxamed baan ku riyooday buu yidhi nin baa u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi siflii alladii ra'aytahu cidaad aragtay bal ii tilmaam buu yidhi sifadeed ku aragtay markaad ku riyootay sidee buu u yaalay markaasuu sifo sheegay sifooyin aan nebiga lagu aqoonin iyo tilmaamo aan lagu aqoonin oo jidhkiisii sidii lagu tilmaamay aan ahayn ayuu ku sheegay ninkii riyooday markaasaa maxamed ibnu siirin wuxuu yidhi lam tarahu maadan arkin buu yidhi cid kalaad aragtaye nebi maxamed ma aha salawaatu rabbi wasalaamu calayh sanadkiisu waa saxiixa aharka isaga ah sidoo kaleeto wuxuu leeyay ibnu xajar waxaan arkay ahar kaloo xoojinaya oo cabdillahi ibni cabbaas ayaa wuxuu yidhi nin baa wuxuu ku yidhi nebigaan arkay sal alla alay wasalam waxaan ku arkay riyo markaasuu cabdullaahi wuxuu ku yidhi cabdullahi ibni cabbaas waa taabici waa nebigeena adeerkii waa saxaabi nebigeena adeerkii wey markaasuu wuxuu ku yidhi siflii ninkaad aragtee nebiga ku sheegaysa bal ii tilmaan ii sifee markaasaa wuxuu yidhi xasan ibni caliy ibni abi aalib ayuu u ekaa buu yidhi xasan ibni caliy ibni abi aalib waa wiilkii nebigu adeerka nebigu sal lay slm awowga u hayay gabadhiisu dhashay nebiguna u ekaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xasan buu u ekaa buu yidhi markaasaa cabdullaahi wuxuu yidhi ra'aytahu waad aragtay marba hadduu xasan u ekaa
cid aad aragtay nebi maxamed buu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka sifaadka jidhka nebigu siduu u yaalay in la bartaay waxay kaa caawinaysaa haddii aad ku riyooto oo kale cidda aad aragtay ma nebi maxamed baa oo shaydaanu isu soo ekaysiin karaynin mise shaydaan baa cid kaleeta nebi maxamed kaaga dhigay iyadana way kuu kala caddaan kartaa haddaad taqaano jidhkiisu see u yaalay nebigeenna sala allahu calayh waalihi wasalam intaasi waa xalaqadii koowaad ee mowduuceennii shamaa'ishii nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ilaa intaan kaga kulmayno xalaqada labaad